xaflad ballaaran oo shahaado lagu guddoonsiinayay ardayda dhamaysatay kulliyadda sharciga iyo daraasaadka islaamka kana qaadatay bachelor degree ayaa waxaa lagu qabtay degmada Galdogob. xafladaas ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada, maamulka jaamacadda, waalidiin, ardayda qalin jabisay iyo marti sharaf kale. ugu horeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Galdogob Muuse Maxamuud Takar, wuxuuna u hambalyeeyay ardayda 4 sano soo waday kulliyadan. waxaa kaloo ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Bariga Afrika Dr. Aadan Sheekh Doon, wuxuuna ka hadlay muhiimadda jaamacaddu u leedahay ummadda. sidoo kale waxaa ka hadlay boorka jaamacadda Bariga Afrika Cabdiwaaxid Xaashi, wuxuuna ka hadlay in 15 sano kadib ay sameynayaan waqafka jaamacadda meeshii ugu horeysay ee ay ka bilaabayaan tahay degmada Galdogob. runtii jaamacadda leedin sheega xarunta weyn iyo 6 farac waxaan sanadkan qorsheynay 15 sano kadib inaanu sameyno barnaamij la yiraahdo waqafka jaamacadda ورسول الله سفائد أصل كلا تابون ما يفيدها استعمالها جامعات كستا وحيوبها أنت جامعات تنقل الوالي مركا نصيب حولي لغستي مشروع عينا نقود أخذه. sidoo kale waxaa ka hadashay Dr. Xaawo Xeray oo kamid ah ururka haweenka degmada Galdogob, waxayna sheegtay in ay ku faraxsan tahay ardaydan qalin jabisay. ardayda jaamacadda aan ku qanino ardayda ku jira maqlin taasoo maslaxa dambeyntii waxaa xafladda soo xiray gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Ayaxle, wuxuuna ardayda guddoonsiiyay shahaadooyinka. maxamed cumar afdhoob, warbaahinta caalamiga ah ee Kalsan TV, Galdogob.